سميرة كسر دو برامج كن. والله العالي وانكودو هي أنا وضع ما صنتها والله. سميرة دي كل أرتا وينوصل نقطة نهب لها دي. هالأمرك أنت بدن ده ويكويرين وقتها سماري ده. مركا بل مركا هراء سميرة أو شنتي قبل دائر أو هالأبورة أو برامج كوي دانو. أيا أنت عن سؤالها أوجلين برنامج كنا برامج كني عن سؤالها هي بل مركا هراء سكابن halka ku soo barbaartay si yar oo walaal cali aad baad u mahadsan tahay magacaygu waa Samira Maxamed Ahmed siinibna waa la yiraahdaa daala kuma magac dheerahay Samira Daalo waxaan ku soo barbaaray magaalada Hargeysa magaalada Boorama sanadihii ugu dambeeyay waxaan ku dhashay Boorama meel yar u dhow oo walal gool la yiraahdaa ayaan yaraantii ku dhashay dugsigeygii hoose Hargeysa ka bilaabay qaybo kamidana dugsigii hoose waxaan ka galay Hargeysa Boorama وهاجا وما سنتها معلوماتها دبارت هذه وحبرشة هذه عندنا قصيص هذا ما بال منسوين في ربنا بعد إيش هيك اسمه دويد وشيء في السنة سما يسي أو عتير يسي دسين مش إمك الشيء إننا قبلها هالأبورك هذه تروي كويري مركها بالمنسوين كأسماء يسي مركها هراء ونوترين دون تاعي dad badan baa Sweden karo Soomaalidu hadii jeer waxay dhahdaan marka de waxa ka maansada mahal abuurka laga feeriyo aadiyad ma hidaa way la yiraahdaa ma wax weeyaan ma de qofku mahal abuuro keena misay kugu dhalatay baad arrimahaas walaal cali waxa igu dhalatay anaga familiga waa hidabaan socdaa oo aabbu waxa abwaan أوون في أوان جيجا الصومالي اللي يقانو قبيلة فرليديو أدبو ديرين شري تاها كاسن هيبة ومرقة هيبة ويان. هلا بوردا لا داير له أو السنة يو سميرة محمد سيد نشاك توهوي هلا بورد حق ده كهيسة بيدي أو جيل سيجي بيتر وهاك بل حتى ترى intee ilaa oo magarasa maasooyinka aad tirisay kooyo laba hada nooga sheegtay walaalo maasooyin farbadan baan tiriyay adoo qiyaas ahaan waxa uu xabir karaa ilaa 230 39 ilaa 40 inta u dhaxaysan qiyaasi karaa aad bay u badan yihiin 39 soo aad bay u badan hadaba caawa waxaad jeceshahay maasooyinkii baad isleedahay dadweynaha dadkan kala wadaagi goorta qaybta koobaad ee barnaamijka walaal cali aad baad maasan tahay maasada ugu horeysa ee soo qabanaya daawadayaasha waxa weeyaan maasahiba la yiraahdo oo markii aan hal abuurka ku soo biiray aqabadii iga yimiday aniga ragga ugu jawaabaya oo rag badan baa iga yiri hawsha waa hawshi ragga buraanbur oo iska taagabayga maasahiba la yiraahdo hal abuurku waa hibo taasaan u furaya insha Allah inaad u magac bixisid ragga buuq soo aad hal abuurku waa hibo ragga igu kalifay wana ma sayro kooban ka hadlaysa hal abuurku waayo hadday gabdhihina hal abuurku soo biiro wax badan baa ka qaadaya waa hagaag bal aynu wada maqal bal nootri maasada hibo hal abuurku waa hibo wana hadiyad gaaro ama hal abuurku waa hibo ama hadiyad gaaro rabbihanadada mid siiye halaheeni luma iyo hidaheeni liitay hana qaadayaashii heesan jireen himilada wacnaayow hadraawiye gaariyow hablahana amaanayo hibe ee basiiyo ku tilmaamahay sare anigana halkaasi haldhigayga maantu waa hal abuurkee hanadada ku sheegay habluhuba inay hal abuurka noqon karin hana qaaday hablihii hooyooyin baan nahay horseedkii dadkaan nahay
himiladii ummadaan nahay higsanayo meelo hala geela dhala iyo hilac nuurayaan nahay hablo dhowrsan baan nahay hidihii sitaan nahay hanafkiyo xishoodkana hana qaadan baan nahay haliyada noo hanjabayow hawlaha wado haweenaydiini baan nahay kuwaad hoy wadaagtaan haweenaydiini baan nahay hanad iyo haashimba annaga u haysnay hortayaana magac dhaba wadaragtood in hanad iyo haashimba annaga u haysnay hortayaana magac dhaba halkeed nagu hiifteen hingaadiyo gabaygiyo hadhigayga sugaaneed hal abuurda yar baan nahay hidihiyo dhaqankii weli haysta baan nahay dumarkana halkoodii annaga u reegano hadafkaan lahayn iyo himiladii dumar baan u reegano qoraalo soo arago iska kaaya haraajin ilwaad daba socotaa laakiin ilaa siyaasadina way ka qod qabsoomka xitaa dumarkii wax la leeyahay de hirdanka ka dhaxay rag iyo dumarka dumarka inta dambe de macluumaadsadii macal siyaasadii xilal badan bas ku hayna xilal badan isku qabsanay xilal badan bas waa tahay maasadii kale siilay baad ii sheegtay ha siilay wala siilay u samaysantay marka hore oo si uga fikirtay markaas iyo siilay markaan sameeyay anigu habeen baan ka imid bandhig markaan guriga imiday ayuumaan is iri niyow miyaad maasadan si kale ka fuula ayay igu timiday marka gabadh baan gurigeyga u raacay gabadhii baan la hurday waxaan is iri uniyo laba arrimood ba marka dhinac yimid ha soo hormaray niyo miinay ahayn haddii imka guri aad leedahay aad xilligan hurdi lahayd gabadh bal lama hurdeen iyo mid kale oo Soomaali marka qodbad dad jeedinayeen baan ka yara dareemay xoogaa inay dadkii de qabaa'il iyo wax dhinacaasi marka labada arrimood bay siinay wada taabaka dama silsilad bay noqotay dhalinyaro fara badan baa ka soo horjeeday igala qayb qaadatay aad bayna u mahadsanay aad baan uga salaamay halkan taasaa siinay ugu kaliftay oo wiil baan leeyahay marka iska soo dhamay hawshoose kaalay iska soo naba hooyo aad ya waxa weeyaan dilacay dad jacayl ka soo aad ilo qofna waxa weeyaan wiil baan leeyahay hadna meel cidaad kaliya jeefta aniguna wax xiligaas arkaa waa la isku keeno aad iyo aad sax weey bal hadda maasada aad kan filayo kulay dad badan ay jeclaysan doonaan bal hadda noo tiri waqtigo samaadiyo saadaashu waa khayr geesigaan sugayo waan helisadkayo ima kala soonagayaankuye seerihii nugaaliyo ilaa saaxiliyo togdheer iyo samow boorami iyo saylic iyo awdariyo surad iyo ilaa hawd iyo subla dabadood inankaan sugaayee jeer sahaminayo goormaadima safkay nafti way ku sugaysaa ilaa saacadii sanqashada jacayl baa ii taaga suulkee afartaa sideedii mowtegay ma banaana sidarkeed saadaashu goorahan waa inaan samaano salka aan dhignee sooryada iyo gobi iyo qorigoo sar go-an iyo heeladoo sideed iyo go-akiisa suufka maa siisid gacalko sooryada iyo gabaatid iyo gacalkoo salaan iyo sacabadaysa saarana suldan waan sugaayey waxba yaanan sarbeeb iyo sugaanta kuu maldihine afartaa sideedii mowtegay ma banaana sidarkeed gaari suuban baanahay samihiiyo wanaagiyo diinta lagu sufeeyo sunnadii rasuulkiyo salaadahu ay seegine maansada siinlaydaa waxaan ku sabootiyey suldhabaala waa hadal sugaantu waa sifo sadarkeeda jiiftada haddaad saani u garan dulucdeeda sagaalkiyo oo sanqadhayda aad maqli jawaab sugan soo sii sasab naftoo saldhigeeda hoosiyo sibirka uu joojiyo ha su-aalin sabankee nolosha waa sibixe waxaad leedahay waxba waayaha ka fikirinaha iska kaalay waa tahay dee jacaylkeena wada wadaagi doonaan هذه شيء واحد لقيها دلير صدقية تكبر رجال سيسو كورسدو فركي واحد لقيها دويل كدليرتي قبل فربنا دكتور سير إيجو واحد هذا لا وحبا سو كربي أحبا سو كربي هاي واحد جرسحي تام صان كوكو وابين يوم هذا كورسدا فقو قبله وقلبنا عينه لما كجشان تيجي كورسين كرواي بجرسي حلاشات دمر بجرسي مركا إن شاء الله برامج دبان كسوق عادم طولنا هذه waxaan filayaa kulli marka rag badan daawadaan oo barnaamijka maasada siinay inay ku baraarugsanaan doonaan inay iska guursadaan oo xitaa kii labada ka dhigi karaa saddex iyo lababa ka dhigan leeyahay miyay adoo gashay aad iyo ha oo loo guriyo maayo qofku inuu tafiirmo ragga sida caadiga afar baa loo baneeyay raggu yaanihi way qaybsamaan oo ilaahay baa afar ka soo dhigay marka dumar iyo laba iyo saddexdii guursadaan wuxuu may soo faa'iidinaya waxay xumaynayaan ma jirto dumar badan baa daawan doono halka ka caroon doono ma isla dumarkay daawanay waxaan ku leeyahay iska daayina soo rag u dhisaan leeyahay labada iyo saddexda oo kala وحاجات وهم عليه كله ده حفلة فرق بدن أو يدمر فرق بدن ولا قبالة يقول هذا سين ميل يروح أتري دون تصور تكلا ما سكر براق على إدارة هذا الشيء براق واحد كنت مداي ويل بحفلها يرد العيب فتو كنت هالعبورة هاي
dabadeedna habeenada kamid aan arkay isagoo hablii caagad iyo maxayo wuxuu lahamayne hablahan geeyigan degan been uma sheegaan sidoo wana rag waxna marka qaarkeed moogtay ayuu ka sheekeeyay marka hablihii uu farta ku yargoday aniguna sida baan maasada bureeqa u tiriyo ugu jawaabay waana jawaab abwaan suldaan ah maxamed xasan nuur suldaan oo hal abuurda iyo reer Buurama waa tahay hadaba bureeqa ay ku soo noqono runtii xogaa baa dumarkii la soo yar farageliyo ninba soo yar hujuumay oo dabeedna aniga difaac sameeyay waa hadiyada way hagaag bal hadaba maansada labadii maansoo hore waynu aragnay ba aan wada daawano maansada bureeqa hablaha bilan ee bildaansan hablaha beledkeena jooga diliya baalaha wajaale tan iyo Buurama dhexdeeda barada cilmiga amuudeed ama buusta soo dusheeda ilaa buu hoodla iyo barbara sanaad baalaheeda burciya baydhaba dhexdooda bustaanada baki ku yaala ilaa buurtii sayidka ugu beenta weyna aane allaha boqorkaan ku dhaartee rag baa beentii iyo muraadka manaba kala beelin hablo qurux iyo bidhaan leh rag baa beentu ku dhisa intay boqolaal barteen iyagana beenti ka saaray buseel iyo xiisa badan rag baa haweenkii ku beeray bureeqa busaad bilin iyo leeyla rag baa boqolkun ku waayay bilicda joog iyo dhalaalka bidhaantii arag qurxoon budaa maansada anoon baan maraynin hablaha baxsan ee wanaagsan aniguba qaybaan ka ahay biyaankii maansadana anoon sii ballaarinayn waxaan baaq dheer u dirayaa raggii runta baal maree idamqay oo qayb oo aad leedahay wardeed dumarka mid kala hablaha Soomaalida yani qiimaha ay taagan wala garan kara waxa la diiday shaqo ku hablaha weeyasa runtii waa bureeqa waxa leenahay kulay dhalinyartu inkastoo de maahmaayo si qaldan marka qaarkood loo fasiri karo walaha been baa loo sheegaa way ragii habluhu labadaba waa dhici kartaa marka qaarkood been waa dhamaan bari moogtay marka wax kala qaranaysa been sheegta waxa kale in beent waa ka xaran diinta islaamka marka hadana markuu inankaasi sidoo habeenka uu leeyahay yani si aaday ma qeynaa waa tahay nimaasa kale waxa jirta sabaalo la dhaha sabaalo waxay daba socotaa siin niyahow aniga oo maasadii saddexaad ee siin soo galay silsiladii markay noo furantay ayaa waxa dhacday muddo kadib baan waan mashquul hawlo shaqo iyo adduun noocaas ninba markaa jawaabiga sugayay sida caadi laga humaag baa raadinaya su'aasha ka jawaab su'aantuna sideedaba humaag laan marqaaqdo xilligu humaagku ku yimid ama bas la soo ama gaari la soo ama bijaash saarnayo waqtigu humaagaasi ku yimid ayaad ka maasoonaysaa iyo arinta ka falcelinaysa marka nin aadan cali doondoon leeyahay markaan uga aad ugu salaamay ayaa habeen igu yiri maas gabay waxa jiray saatir wallahi ilaahay nin fiican kaga bariyay waxa jiray gabay saxardiid leeyahay inuu ku sifeeyo saxardiidina kaas waa iminku maan helaan lahaa waxa jira markaan gabayada badan soo arkay buu igu yiri horta inaan raadinayso wuxuu yahay ku jooga inaad ka raadinayso diyaar anaga ban laga dhigto sharax haade halka laga helayaa dabadeedna aniga oo markaa siinlay daba socoton yani isku kulay maasada laga dheehanaya sida ay u socoto ayaa waxay aadan oo sabaalaha adduun subaxba waa cayne sayid calaw waa ninkan sayid calaw sakaraadka moodkiyo saacadii aan joognaba waqtigaas u sumayo sarmaseegta weeyaan geerida sinteedu hadduu moodku igu simo sawirka qalbiga suran aadmigu sifeyn kan haddii aan ku su'aalo ama aan ku sarbeebo may siin kartaa may sawiri kartaa wiilka qalbiga suran ee aan saadaashiisa raadiyo ee aan sabana badan uga soomay anfaaciga soo naydilkeed miyaad ii sifayn saatirkan ku dhaartay suuradiisa muuqiyo socodkiisa laafiha sinihu dhaqaaqaba sawirkan dareema inankaas aniga haliyo habeen kasta way soo agmaraan inankaas way soo agmaraan waa cajiib waliba socodkiisana waan dareemaa dadka kama sifayn karo sooyaalka dhaqanka iyo suugaanta kuma ileen karo haddaan u gabayraa hawaayna fara badan sooyaalka dhaqanka iyo suugaanta kuma ileen karo xaraf kuma sirgoyn karo waa hebel ma oran karo surunkun ku nool yahay wali dhaayama saarine masamuucan halkiisuu ku sugan yahay mise saylic iyo awdal soonyaheedu silbada ciyaaraa ninkii haddana waa la doondoonayaa kolba magaalo ku sugan yahay hataa yaa hawsha حكم كلمات الله حتى أنا يجي بنو ترى كوي سور هذه بس سيل عياود سيوس ماذا عيارة بس سيريه إنه قال سموا عنده كيجي مقتشو كسوي هاي بس سنة أكبر أكتر يسول جوي هدي يدور برواقة وصار وساتر كبريا من كلمة هو عين بورتي ديالك تدي كنت كذا أيان سيري
aniguna sabaalaha saqda dhexe habeenkii xidigahan siraadma unkoo wada seexday baan sawirkiisa raadshaa habeenkii markaan seexdo unkoo wada seexday maba seexda anigu waan raadshaa sanqadhii baxdana socodkiisan moodaa sawd baan dee unkoo wada seexday baan sawirkiisa raadshaa sanqadhii baxdana socodkiisan moodaa hurdadan ka salalaa sawd baan dareemaa Samiira ayuu leeyahay abku yeedhay ayaan dareemaa ragga lama sineeyo ku suurad wacana ma dhashii Suleekha mise wax raacinta sabiga maankayga saaqay maxriyo ka sees waa su'aal daaweyne igi baan weydiiyo maankayga saaqay maxriyo ka sees waa su'aal daaweyne sabadkan ku nool lahayd dadku ma basine masakhraan dhintaa ma sigaar cabba ama kuwa ka sal guuri baa dhaqankii sugnaa saatirka garane saatiro wallahayow sidii roon igu keen sabaalaha aan sugaye maalmo saatir baa tahay saatir wallahayow sareedana cawqabu aadmigu sifayn karin adaa saaray dhaayahe sawirka qurxoone qalbigayga saaqee sanbabada ku baahee saableyda oofaha sinta dhabarka seeleyda xubnaha sinta dhabarka seeriye falaadhaha suntiisuna ma saaloone inaad dhabo jeclaata hawshiisu ma yara suntiisuna ma hawl yara suntiisuna ma saaloone saatir wallahayow igu keen sabaalaha aan sugaye maalmo saatir baa tahay marna hadalku suririyo sarbaabtiyo murtida sugan aadanu ma seege waa siin leeyay iga qabo aadanu waa sadarka jirkeeda waan sasabaa nafto saldhigeeda hoosiyo sibirkaan u joojiyayo mana samir darnaade sadka maqara baa oge saatirka marya labada maaso waxay xambaarsan yihiin runtii la xiriiraya dhalinyarnimo ama jacaylka ay xambaarsan yihiin waana dee xigmad bay runtii aada ugu dhisan yihiin oo dee wiilkii weliba la raadinaya sidoo kale maasadu kulleyba sidee ka muuqata yacnihii dadkeenan nin walba dhinac u go-ayna sidoo kale oo waxaan saxaminaya wiilun kulley inay noqone dhinacyadii kale siyaasadina ku jirta waa tahay waa run dee wiilkii waxaynu ka raadinaynaa gobollo fara badan oo dalka ah ayaa laga raadinayaa oo waa hagaag runtii afartaa maaso halkan aad ka tirisay oo aada iyo aada runtii maasooyin cajiib ah marka dee aad dhalinyaro tahay oo dadku arkaan sidaan aad u tirinayso maasooyinka iyo gabayada maxay ku yidhahdaa walaalata qaarna hore u socday ugu dhahdaan dhalinyaro fara badan ba markaa suugaanta kusoo biiray soo dhaweysay dhawaanin fara badan baa sixitaan suugaanada lagu sameeyey habka miisaanka habka luuqda xarfiisa isku raaciyaan qaafada soo dhaweeyey dadku in badan ma qof kastana ku tiriyaana aniga way soo dhaweeyay wuxuu gudada Samiira hore u soo socdo intay ka tabayso anaguna hore u socayaan Samiira qaybta labaad barnaamijka ka dhiga doonaa qaybta koobaad runtii maasooyinkaagan dee qaar waxaa labada ugu yaraan dee laba maaso imika halka aad ku tiraysay arrimo waxay la xiriireen dhinaca dee jacaylka oo dhalinyarteeda leedahay war fadhiga ka kaco isa guursada oo diintureed ku iska guursataan hablihina waabad la hadasho waxaad tiri ragga u ogolaada labadii saddex iska guursadaan ugu dambeyn fariin noocee aad iyaga marka aad u diri lahayd dadka waxaan u dirayaa hota mid baan dirayaa hota dhammaan dadka halkan shacabka Soomaaliyeed aad baan halkan ugu salaamayaa idinka cali saxafina iyo waan xuriya TV-na 24 TV-na aad baan idinku mahad celinayaa dhalinyarada jacaylka waxaan u dirayaa jacaylku waa qayb kamid ah nolosha haddaan lamaana iyo jacayl jirin ma samaysanteen waana qayb nolosha kamid ah jacaylku dadka afka suugaanta ku hadashana iyo dadkana waxaan u sheegayaa qofna inuu dhalinyarada hal abuurka ee hablaha sidoo kale aan suugaanta qarsanin suugaantu waa qayb kamid ah wuxuu Ilaahay kugu beeray oo hibada waxa soo tirada hiba Ilaahay ku sii habeen iskama qaado marka hada tiraahdo gurigan la fadhiyaa oo waxaan doono halkan baan ku tirinaya ma noqonayso marka waxaan leeyahay hablahana inta gabayda horaha u soo socdo insha Allah aad iyo aad mahadsan tahay taas waxay Samiira Maxamed oo ah gabadh daayar oo runtii hal abuur ah oo daawanaysan maasooyin aad u cajiib badan runtii halkan in ka tirisay aad iyo aad ayaad mahadsan tahay taybka fiican runtii aanu barnaamijka kaaga qabanay daawadayaal idinku aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin waqtiga fiican ee barnaamijkaasi aad ku daawateen saaxiibada dhinaca kamarada Cabdiqani iyo injineer Cabdikariin iyo Ahmed iyo injineerkayga hore iyo dhamaantiin
bahdaasi xagga sawir qaadida iyo farsamada waxaan leeyahay aad iyo aad baad idinkooda mahadsantihiin idinkuna daawaday aad baad mahadsantihiin barnaamijkaas intaasaan kusoo gabagabeynaa waana al saxafiya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu